رمضان مبارك kusoo dhawow channelka Taqwa Somalia channel oo ka daawan doonta soddonka beri Ramadaanka maalin walba qisad cusub iyo nabi cusub waxaana la baran doontaa oo la daawan doontaa maalin kasta nabi cusub qisadiisa aana la daawan doontaa la wadaag asxaabtaada iyo dhammaan familkaaga like na saar subscribe na saar commentigana hoos ku reeb السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد الشانل كينا تقوى صوماليا channel ما انت اي قصة وقدم بيس هدو إلهي يراهو حالة وحاكا هذا لنبي الله عيسى عليه السلام اي كتابكو كسو دقل لهاي انجيل اي هو يديسا مريم بنت عمران اي وحيالا بضانا كاستفيدني يسودو إله سبحانه وتعالى ملائقو وصادرة وسودو عركو وقالا أنبا عركو وطاوي إله سبحانه وتعالى كرو وقاضي maanta insha Allah tacaala qisada ka hadlayno waxa waa qisad aad u xiiso badan waxa waa khayr al-anbiya waxa waa khatim al-anbiya wal mursaliin nabiyaasha ugu dambeeyay waay oo ah nabiyullah Mahamed sallallahu alayhi wasallam ku salay nabiga maanta qisadiisa insha Allah tacaala ka hadlaynaa dhalashadiisa ka hadlaynaa murdacayaashiisa ka hadlaynaa iyo qisooyin aad u xiiso badan insha Allah maanta xalqadeen haduu Ilaahay yiraahdo nabiga Mahamed alayhi salatu wasalaam noogu dambeeyo marka insha Allah tacaala dhageysi wacan نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحكو لشي يتيم أصوه لشي وايو آبيه سمركو أوركو هيديس كجيرو انتي marka waxaa tawaliyay ambis kale waxaa kafaala qaaday amba agtiisa oo kusoo karay awowgiisa cabdulmutalib oo si fiican oo aad u fiican oo yani wax walba uu sameey jiro aad yani cinaayad fiican oo siiyay markaas wuxuu u dooray cabdulmutalib qof naaska nuujiso wuxuu u dooray horta koo naagta nuujisay waxaa waaye thawbiya mawlaad abi lahab la dhahaa kadib haddana waxaa nuujisay xaliima sacdiya markaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku koriyay qaryad amba baadiyada bani sacd oo ku koray ilaa yani naaskana way nuujinaysay xaliima sacdiya ilaa oo ka gaaray 2 sano markaas xaliima sacdiya waxay aragtay barakada soo gashay markay bilowday in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay naaska nuujiso waayo caanaheeda awal naaskeeda wuxuu ahay qaleel markay naaska bilowday inay nuujiso caanaheeda way ku soo batay ilmo badan oo deeqa gurigeeda baraka soo gashay awal ma deeqi jir raashin cunto xataa ma heli jirin kadib waxay aragtay in raashinka badan yahay irsaqa badan yahay barakada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaas dhan keentay نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحو كسو كوري صحراء بني سعد وكسو كوري وحو أهاي حوق سيدو وياشو جرعة في مضلي أو هلو أو هذا الكيسنا فسيح أو نقضو أو قف يعني أو نقضو الصقة كلسون اسكو قام بس الصقة اعتماد على النفس يعني الله اعتماد أصاق اسكو إلا أو كجاري 4 سنة مركو 4 سنة أو جاري أصاقو ليلة المير أو عرور وقتيجا أو رعية لأن رسولك عليه السلام حوله راعي جري رعية مركو أو راعي أو وحاسودكتين ملك جبريل عليه السلام أسودكتي مركاسي أو نبي محمد عليه الصلاة والسلام قلبي جيسة أم بحابة كيسو كلا جيحي قلبي جيسو كسو بحية وحاكو جرتي قطعة مذو أم بوحير أو مذو وكجري وحاسو قاضي وحود هي جبريل عليه السلام وحدها هذا حظ الشيطان منك أو دهي مركاسو قلبي جيسة قاضي علوشيسة وحدة من بيها ذهب كزمزم وكنقي مركاسو ونقي المها ير way arkayeen waxaasi markaasay naxeen ee ordeen markaasay waxay u tageen mardacada ambis kale xaliima sacdiya u tageen markaasay waxay dhaheen in maxamedan qad qutil yani nabi maxamed waalid dil ay dhaheen markaas nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo yimid markaasoo jareynaa yani naxsan waxa ku dhacay in waa yar 4 sano jiray markaasi waxay u dhahdeen wax ma kugu dhacay markaasi oo waxay dhahdeen habartaaga ku naqa aamina markaasi aamin waxay u dhahdeen aniga amaanadeedi waa dhiibtay dimadeyna waa kana amal markaasi u sheegtay qisada wixii ku dhacay in saas wixii lagu sameeyay markaasi habarta ma naxin mana cabsan laana habarta waxay dhahday marka dhalaayay dhahday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nuurka iyo soo baxay illa sham
يعني ودنك ماشي الشام لدهاي نور كاس إيفنا يعني نور حوق بدنا إيقصوا بحيره مركاني حادثة ذاني دعذي أو قلبي يسلا نظيفية وحنا لنظيفية أو وحي وساوس وحي الشيطان وحنا لقصاري رسولك عليه الصلاة والسلام هاي دلالة إيه نبي نمضى الصغو يريس إيه وحيقة markaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu la jooga hooyadiisa ilaa uu ka gaaray 6 sano ilaa uu ka gaaray kadib hooyada ay dhimatay markaasi oo joogay bayna Makka wal Madiina markaasoo joogay fajadigiisa Cabdulmuttalib mar walba waxa sii jira xanaanka waalidnimada hooyanimada aabanimada maca ilaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam agoono noqday asagoo yareen hooyadiisa dhimatay fa mar walba asaa ugu dhawaay oo asaga ilmihiisa kale oo ka tirsanay markaasi ricaayadan iyo qalbigan saan u jecel iyo naxariistan dhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu gaaray 8 sano wuu dhintay jaddigiisa Cabdulmuttalib markaas haddana waxaa kafaala qaaday adeerkiisa Abu Talib markaasoo asagana mar walba yani wixii khayr u sameey jiray awlaadiisa kamid ahaa wax walba fiican ixtiraam iyo taqdiir iyo wax kasto fiican oo u jiray oo sameey jiray ximaayadiisana oo ahaa oo ximeey jiray markaasoo xataa u danaani jiro yani waxyaalo badan xataa xawaadid ka badan hadaa dhageysateen qisada rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad u difaaci jiray difaacigiisa dhan oo ahaa ilaa oo ka dhintay adeerkiisa markuu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo noqday marxaladda ambis kale dhalinyaranimada markaas oo ku jiray camigiisa Abi Talib oo mar walba wuxuu u raaci jiray tijaarada oo ila Shaam u raaci jiray Shaam si uu aadaan markaasi oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo bartay tijaaranimada yani sida tijaaranimada waxyaalahaas oo adeerkiisa oo ka bartay xataa oo ka noqday taajir macruuf sida oo ka noqday markaasi dadkii dhan iskugu sheegay laana qof aamin ahoo ahaa qof run sheegayo ahaa waxaan magaci loo bixiyay waxay ahayd as-saadiq al-amiin markaasi Quraysh Quraysh la tashan jirtay mar walba tijaaranimadaas iyo waxaas inuu tashan jirtay fa waxaa maqashay ummana Khadiija bint Khuwaylid maqashay radiyallahu anha maqashay markaasi waxay u dhahday yani inay tijaariyadana taajirada ahayd markaasi lacag hada la isku dardaro istismaar amal inay sameystaan markaasi fatrad kadib way isguursadeen markaasi u dhashay caruur marka laga hadlayo dhinaca dagaalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam asagoo jirto 4 sano oo difaacay Makka markay soo weejihayaan biska la soo weerarayeen Hawzan la dhahayo qabiilada lahaay Hawzan markay soo hujuumayeen markaasi oo difaacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasna wuxuu jiray 4 sano waxayna ahayd muhiimadiisa markaasi inuu aruuriyo sihaamka amba kal isku dhudhufay waranka inuu aruuriyo oo adeeryaashiis u dhiibo rasuulka calayhi salaatu wasalaam asagoo yar xataa wuxuu ka qayb gali jiray nadawaadka ambis kale ijtimaacaadka amba meetinga markaas laga qabi jiray oo qadaayooyinka dadka waaweyn ama qadaayooyinka muhiimka oo ka hadlaysa sida qabaa'ilka Makka ka hadlaysa oo qabaa'ilka Banu Hisham iyo Banu Cabdulmuttalib iyo Banu Asad iyo dad qabaa'il badan rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu gaaray 35 sano markuu gaaray wuxuu dowrkiisa muhiimka oo u ahaayo sameeyay waxay ahayd dhismada Kacbada inuu jadiid ka dhigaan tajdiid ahaan in lagu sameeyo oo laga dhigo oo yani meeshaas markaas waxa soo gari jiray biyaha amba roobabka soo gari jiray oo roobabka iyo waxa dhan yani ka daboolo حتى dhagaxmanka wuxuu la qaadi jiray adeerkiisa Al-Abbas bin Abdulmuttalib oo markaas dhagaxmanka Kacbada iyo oo la qaadi jiray حتى رسولك عليه الصلاة والسلام وحالة ديك حاكم كأنبس كله قفك حكم كبحنايو مركي اسكو مرمين إنه بقى حمدوغا لصارة اسكو مرمين markaas oo yani xalka wuxuu noqday in ridaa amba marala keeno oo qabiil kasta geeska qabto oo marka la gelinayo xajarka aswadka Kacbada oo rasuulkeena calayhi salaam naftirkiisa qaado meesha saaro taasna waxay ku cadeynay inuu lahay xikmad dadka dhan hadalkiisa maqlayaan ku cadeynay laanaha yani wuxuu ilaahay ka soko in dagaal qabiilooyinka dhaxdhaco
رسولك عليه الصلاة والسلام مع إنه قوم كيس إيداد كيس وكل حجر لكن قلبي كيس داخل كان مطمئن مأهل منو فرح سنين وايا دتك وحي عابداين شرك أي كجرين صنمياشين عابداين فجور حنو أي كجرين خمرين مركز والعباية مركز يوم مرول بقو يعني مرقو جري أو مركز وبحي جري غار حراء oo bixi jiro sidoo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo caabudo oo mar walbana yani ta'ammul sameeyo ta'ammul xalla yani cirka fiirisid iska fikirtid iska duceysatid oo mar walba sameey jiray illa oo ka dhamaad raashinkiisa markaas oo guriga inta u laabto amba xaafadiisa ehelkiisa u taga markaas oo hadda raashinka inta soo qaatay cabitaanka oo waxa rabo markaas oo keensana asoo markaas hadana yani cibaadada meesha ka bilaabay illa xaalkiisa saana ahayd illa oo ka naqday 40 sano اعتزال كان أو سمي رسولك عليه الصلاة والسلام أو أفضل إنه تأمل كان سمي إنه دعيستو وكانتي صفاء يعني قلبي نظيف أهان إيو روحيسا إيو إنه دينتيسو كسي أتكاضو تنو حاكميد أهد أسبابته أو إله سبحانه وتعالى أو ديب ربي دور مهم أو آد وين إيو مهمة آد وين أو ديب ربي أو إبلاغ الرسالة رسالة إنه قد بيو رسولك عليه الصلاة والسلام وحوالله هاي سدح ويد إي أفرق بدوت القاسم إي عبد الله إي وحوالها إبراهيم أو ده شيء ماريا القطبية هذا شيء سنة كسديدات وحوالله هاي أفرق بدوت أو زينب إي رقية إي أم كلثوم إي فاطمة مركا كل جودة وحاول شيء خديجة بن خويلد أو ده شيء إلا وحاونا لإبراهيم أو حال شماري القطبية كل جودنا وين انتين رسول كان مركو جوجه لكن فاطمة رسولك لح بلاد فاطمة كدم بيس رسولك عليه الصلاة والسلام والله أعلم زوجاتك رسولك عليه الصلاة والسلام وحي أهايان تومن إيكو أي أهايان مركز النولوشيز أصو حاكا لما تلبا waxaa ka dhimatay Khadija bint Khuwaylid ka dhimatay marka asagana wuxuu guursaday iyadoo waxaa jirto 40 sano asagana markaas wuxuu jiro 25 sano markoo asaga Khadija bint Khuwaylid oo qabana yani ma aroosin naag kale dhan ma aroosin waxayna dhimatay 3 sano hijrada ka hor ee dhimatay marka rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam aad oo umurugooda markay dhimatay Khadija bint Khuwaylid xaaskiisa labaad waxaa lahaa Sawda bin Zamca al-Qurayshiya lahaa wuxuuna guursaday Khadija bint Khuwaylid markay dhimatay kadib ayaamo saddexaad waxaa waa Aisha bint Abi Bakr waaye wuxuuna guursaday rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam Shawaal guursaday Aisha bint Abi Bakr ahayd bikra oo ku jirta xaasaska nabiga Ilaahay sallallahu alayhi wasallam nabiga Ilaahay sallallahu alayhi wasallam aad u jeclaay Sayyida Aisha radiyallahu anha حاسكيس أفراد وحاوى حفصة بنت عمر بن الخطاب واي رضي الله عنهما حاسكيس شنادنا وحاوى زينب بنت خزيمة حاسكيس لحاد وحاوى أم سلمة أنبو حالها هند بن أبي أمية الله حاسكيس تضوادنا وحاوى زينب بن جحش بن أسد بن خزيمة حاسكيس سديداد وحاوى جويرية بنت حارث حاسكيس سقالاد وحاوى أم حبيبة ومقعد وحال لها رملة بنت أبي سفيان حاسكيس طبناد وحال لها صفية بنت حي بن أخطب حاسكيس كوي طبناد وحال لها ميمونة بنت حارث الهلالية رسولك عليه الصلاة والسلام أسوى حال جوغا غار حراء أو حاكو سودجي ملك جبريل عليه السلام أكو سودجي صورة nin oo iska soo dhigay markaasoo Jibriil alayhi salaam oo ku soo degay markaasoo rasuulka Aisha salaam wuxuu u dhahay iqra markaasoo rasuulka wuxuu dhahay ma ana biqaari markaasoo qabtay oo habsiiyay markaasoo adan markale wuxuu u dhahay iqra markaasoo wuxuu dhahay ma ana biqaari marka saddexaad wuxuu u dhahay iqra markaasoo wuxuu dhahay ma ana biqaari markaasoo malik Jibriil wuxuu dhahay iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مركز رسولك عليه الصلاة والسلام قريس أو تجي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أو تجي مركز رسولك يحول زملوني أو يعني إددا عملوها لأنه وو نحيي وجرينا مركز سيهد مركز رسولك عليه الصلاة والسلام وحي وكسود دقي marka rasuulka عليه الصلاة والسلام 10 sano ugu yaraan 10 sano markuu maka yani dadka dacwada Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo tawxiidka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo sheegay markaas waxa ahayd qisada Israa iyo Mi'raaj markaas lagu asriyay Bayt al-Maqdis oo
القدس kadibna lagu cirjiyay samada koreeto ilaa todobada samo markuu samada todobaad oo tagay oo jibriil calayhi salaamna oo la socday markaasuu ilaah subxaana wa tacaala uu soo waxyi gareeyay salaada oo ah duhur casir maqrib cisho iyo fajirka markaasay ahayd salaad xilligaas waxay ahayd konton salaad markaasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam يعني مر والبو إلهي بريا إلا أي كان قتي 5 صلاة مركز رسول كينا مخلاي إني قد مضيت فريضتي وخففت عن عبادي مركو إمادة ليلة الإسراء أنا إله سبحانه وتعالى سيدو كتاب كيسا كريم كولا سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فآيدا عظيم كوحين تصي سبحان إله سبحانه وتعالى ليلة إسراء أي معراج كأنه إله سبحانه وتعالى أو صادرية براق حيوان دابد لها يا براق إنه صادري أو من مكة إلا أو قدس جيسي markaas isla koolay rasuulka calaysalaatu wasalaam iyo jibriil calayhi salaam ilaa qudus ay ka aadeen markaasay meeshaasi anbiyaa ay isla dugteen markaasay waxay aadeen samada markaasay jibriil calayhi salaam la socday samad kasta oo yani adan yani isti'daan camal أو أهاي مركز سمد الدنيا ذا مركي آذين آدم عليه السلام أو أرك مركز السلامي مركز وحوده هي مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح مركز هذا سمد اللباد أو حكو أرك عيسى عليه السلام يحيى عليهم السلام مركز السلام مركز مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح مركزو هذا نحو هذا سمد سدحات مركزو أرك يوسف عليه السلام مركزو دحي مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح مركزو هذا سمد أفراد أوتاج وحو أرك إدريس عليه السلام مركزو وحو مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح مركزو هذا سمد شناد أوتاج مركزو وحو أرك هارون عليه السلام مركزو وحو مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح مركز هذا سمد اللحاد أو تجي مركز وحو أركي موسى عليه السلام مركز وحو مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح مركز سمد التضباط أو تجي فوحو أركي نبي الله إبراهيم عليه السلام مركز نبي الله إبراهيم أو ده سيد آدم عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح مركي نبياش أي سلامي رسول كان عليه الصلاة والسلام سمد التضباط أو مقل مركز أقلامته أو مخلي markaas ahayd marka salaada takhfiif noogu sameeyaa oo naqahaysta 5 salaadood haddana waxaan ka hadlaynaa insha Allah tacaala dhimashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa sameeyay naagi yahuudiyad oo u keentay xoolo ee u keentay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam saas sunt oo u sameeysmay waxaana ku soo wareegtay xaadithada sunta 3 sano kadib rasuulkeena dhintay رسولك عليه الصلاة والسلام وحول انتي سنين أو انتي لغاية منك ربيع الأول أو انتي سنة كيكو إتو منك هجري ذا أو انتي تاسنا وحنون بدنيد ملحين سيدو أنس بن مالك أو دهي ما أركن يوم إيغا فينا أون إيغا نور بدناي بان انتو رسولك عليه الصلاة والسلام سوغالي ما أركن مالن إيغا حميد أو إيغا فول حمو بدنيد أو إيغا مقدي أهد مالن انتو رسولك عليه الصلاة والسلام أو انتي سيدو أنس بن المالك ودهي أبو بكر رضي الله عنه أكد كنايي أدوشيناي دتك مركو رسولك عليه الصلاة والسلام أو حنون صدي مركز مالين سنين هذه مركو رسولك عليه الصلاة والسلام يعني مرض أوليحي وحولو جوج مركز السيدة عائشة رضي الله عنها قريدو جوجي مركز مرض ريحيو أركي دتك أو يعني oo qoslay markaasi waxaa aragnoo dhahay weji qurux badan oo saafi ah oo aad u qurxoon oo arkay markaasoo yani ibtisaamo noo sameeyo noo qoslay waxyaar noo dhoola cadeeyay markaasaa dadka min farxadooda ee ka bixi rabeen salaada markaasoo xataa Abu Bakr radiyallahu anhu oo farxay markaasoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo u maleeyahay in salaad laga soo baxay markaasoo ishaare inay joogaan ay salaada dhameystirtaan markaasoo marada daboolay markaasee Faatima radiyallahu anha ay u soo gashay aabaheed midigtiisa ama bidixdiisa oo fadhiisay markaas oo wax u sheegay markaasee aad ay u ooysay markaas haddana wax kale oo u sheegay markaasee qosashay
markaas markuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dhintay ee sheegtay Faatima inay marka koowaad oo rasuulkeena u sheegay inuu ajalkiisa soo dhawaaday ee sabarto marka labaad ee markaasay oysay marka labaadna ee qoslaysay markaas wuxuu u sheegay inay ay tahay yani alaa tardiin an takuni sayyidat nisaa almu'miniin aw nisaa hadihi al-umma in sayyidat nisaa ee noqoto markaasay qosashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay maqcadkiisa oo ka arkay jannada markaasaa loo ikhtiyaaray inuu noolaado nolosha ambiskal inuu dhinto markaasoo wuxuu doortay inuu ilaahay agtiisa aado bal rafiiq al-aclaa markaasoo caaisha radiallahu canha oo u dhaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu aad u xanuunsanayay waxaa dareemaa xanuunkii aa kasoo cunay maalintii Khaybar oo ahayd maalintii oo soo cunayay xoolihii oo soo cunayay yahuudda u keentay rasuulka calayhi salaam aakhir hadalkiisa wuxuu ahaa as-salaa ittaqullah fiima malakat aymaanukum rasuulka calayhi salaatu wasalaam riwaayooyin waxay sheegayaan inuu dhahay allaahuma acinnii calaa sakaraati almowt amba laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat maalintoo dhintay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin ugu xanuun badneed ma jirin adduunyadoo dhan maalintaasay ahayd magaca yathrib la bedelay oo loo bedelay almadiina almunawara maalintoo dhintay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam bas ma ahayn rasuul iyo nebi wuxuu ahaay rajul cadiim oo ahaa iyo qaa'id oo ahaay marka mar walba inaa isku dayna waay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhibkoo noo soo maray sidoo diinta ilaahi subxaanahu watacaala oo noo soo gudbiyo sidoo nicmadan maanta ku jirna oo na siiyo salaada taqwadan nicmadan iyo sunnadiisu raacsannahay marka waxaa waa inuu mar walba ku faraxsanaana diinteena iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam maanta qisadeena maxaa ka faa'iideynaa qisadeena waxaa ka faa'iideynaa kow inaan sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam marnaba laga tagin oo isku daydid mar walba inaad samaysid sunnad oo samey jira nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ta labaad maxaa ka faa'iideynaa qisooyinkeena dhan waxaa ka faa'iideynaa inaan caruurteena ku barbaarina diinteena nebiyaashii horeeto maxay noogu soo rafaaday siday noogu keenaan risaaladan siday noogu keenaan nicmada maanta haysan siday noogu keenaan dhawaanaha ilaahay subxaanahu watacaala tan saddexaada ka faa'iideyna waxaa waaye diintaada caalamka tusi inay tahay diinta ugu fiican inay tahay diinta ugu saxsan inay tahay diinta ugu quruxda badan mar walba tusi dadka mar walbana waxaa isku daydaa inaad salaadaada taqwadaada cibaadadaada xijaabkaaga dharkaaga asturnaantaada dhinac walba aad ka toosisid sax waa ibni aadan waa layahay qaladaad woo dhacaa ibni aadanka qalad woo ka dhaci karaa laakiin markuu qalad kaa dhacaba istikfaarkeena u laabatid marka maanta qisada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waanay soo koobay laakiin qisadiisa aaday u badan tahay aadayna u dheertahay aadayna u xiiso badan tahay qisooyinka min bilaaw aadam calayhi salaam ilaa dhammaadka haddaa saxay fa min allah haddaa qaldana fa min ashaytaan bisha ramadaan insha allah tacaala saasay noogu dhammaatay nebiyaasha min aadam calayhi salaatu wasalaam ilaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa nii wada sheegay ilaahay subxaana watacaala waxaa ka barya inuu ajirna wada siiyo dhammaanteena qofkii ila soo xiriiray qofkii ii duceeyey qofkii ila hadlay qofkii daawada qofkii sheergareeyay insha allah tacaala kheyr badanaa nii rajeyna insha allah tacaala ramadaan mubaarak aan idhaha khawaatim mubaarak ramadaan waa iska dhammaaday khawaatim mubaarak ciid wanaagsan ciidan ciidyada sama iyo salaamo ku wada صومة أجري عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.